السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan u taaganayaa arrin xoog noo taabatay anagu kaliya aan taabanina noqotay mucjiso iyo cadaalad darro ka dhacday Soomaaliland iyo dhulka Soomaaliyeed oo dhan. waxa saaka cabaara 7 subaxnimo xaruntiisa shaqo laga dhex qaatay Sheekh Maxamed Sheekh Ismaaciil oo ah culimada waaweyn ee reer Soomaaliland ahna aabahay waxa qaatay ciidanka dambi baarista markaan ka daba tagnay si aan u ogaano xarunta uu ku sugan yahay iyo xaaladdu siday tahay meel kasta waanu marnay ilaa hadda oo ay tahay 5tii galabnimo ma hayno warkiisa iyo meel uu ku sugan yahay meel kasta oo aan marnay oo ah ama xarun dambi baariseed ama saldhig meesha doonaba ku yaala aan tagnayna waxay noo sheegeen inaanay arkin sheekha waxaan u weydiinaynaa ama aan maanta halkan ka sheegayaa Sheekh Maxamed Sheekh Ismaaciil muu ahayn maanta sheekh cid kaliya u khaasa wuxuu sheekh ummadeed wuxuu sheekh Soomaaliland wuxuu sheekh Soomaaliyeed oo meel kasta oo maanta looga baahdo tagi karayay awoodna u lahaa inuu tago laakiin waxay sheegeen reer Soomaaliland in aanay meel kasta qofku tagi karaynin cadaalad darrana maanta haysata waxaan doonaynaa inaan cadaalad helno waxaan maanta u taaganahay halkan waa inaan cadaalad aabahay helo aniga oo ka turjumaya afka walaaladii iyo reer Sheekh Ismaaciil oo dhan iyo wixii ehelkayga ah marka waxaan anigu codsanayaa codsiga kaliya aan dhiibanayna uu yahay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi in uu sida ugu dhaqsiyaha badan isaga iyo hay'adda xuquuqda bini'aadanka ama dambi baarista iyo dambiga waxa soo dhan shaqada ku leh in sida ugu dhaqsiyaha badan noogu soo jawaabaan nooguna soo sheegaan halka geeri iyo nolol Sheekh Maxamed Sheekh Ismaaciil idinka qaatay cid kale ma qaadanin noo soo sheega halka kaliya uu ku jiro madaxweyne waan ku codsanaynaa calankii baan hoos taagan aan ku daldalnaan inta ku leeyahay kaliya waxaan codsanaynaa inaad sida ugu dhaqsiyaha badan noogu soo jawaabtaan noona soo sheegtaan aabahay halka geyseen wax kale kama codsanayaa